إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلا هادي له ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku yidhi dahara alfasaadu fi lbari waalbaxr bimaa kasabat aydi nnaasi liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun. beri iyo badba waxaa ka muuqday sababta dunuubtay dadku gacmahooda ku kasbanayaan fasahaad. walaalayaal dunuubtu iyo macaasidu waa waxyaabaha keena in umamka la halaago. ummadihii hore qur-aanku inooga waramayna waxaa loo halaagi jiray bisababi dunuubihim wa macaasihim, macaasidoodii iyo dunuubtoodii. qofka bini aadankana laa shaka walaa rayb inay jirto wax ku riixaya macaasida ay kow ka tahay naftiisa, waayo ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi ina nafsa la amaaratun bisuu, naftu waa mid ma garanaysaayay dadka xumaanta fartaa. haddaba insha allahu tacaala walaalayaal waxaan kelimaad aan badnayn ka odhan doonaa waxyaabaha qofka ka saacidaya ka hor istaagidda inuu macaasi sameeyo markay naftiisa ama shaydaanku ama hawadiisu ay u qurxiso inuu dembi ku dhaco. kow waxyaabaha waxaa ka mid a qofku hortaa inuu mar walba niyadda ku hayo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu arkayo, xaalkiisana uu la socdo. waa ka ilaahayna qur-aanka ku leh alam yaclam biana allaha yara, miyaanu ogeyn qofku markuu xumaan samaynayo inuu ilaahay arkayo. saas oo kale alam tara ana allaha yaclamu maa fi samaawaati wamaa fi lard maa yakuunu min najwa halaathatin ilaa huwa raabicuhum walaa khamsatin ilaa huwa saadisuhum walaa adnaa min dalika walaa akhara ilaa huwa macahum aynamaa kaanuu huma yunabiuhum bimaa camiluu yowma alqiyaamati ina allaha bikulli shayin caliim. suuratu lmujaadala. ma jira buu ilaahay subxaana wa tacaala tilmaamayaa 3 qof ilaa ilaahay baa ah macooda ku afara, shanna ma jiraan ilaa ilaahay baa macooda ah oo ku lixa. tiro intaa ka badan ama ka yarna ma jirto ilaa ilaahay baa ka warhaya oo ilaahay baa subxaanahu wa tacaala xaalkooda la socda. maalinta qiyaamana waxay sameynayeen buu uga warrami doonaa. walaalayaal kow qofku inuu marka hore dareemo markuu macaasi iyo afcaal ilaahay subxaanahu wa tacaala xaaraantimeeyey ay naftiisu ku dhiirigelinayso inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala la socdo, xaalkiisana ka warhayo, meel uu kaga qarsoomayaana aanay jirin. arrintaa qofku hadduu aaminsan yahay naftiisana uu ku booriyo xumaanta waxaa laga yaabaa inuu dib uga istaago. saas oo kale qofku waa inuu dareemo inay jiraan cid ka mida makhluuqaadka ilaahay oo iyaguna og markuu waxaa samaynayo. waa kana ilaahay qur-aanka kaga warramay malaa'ig la raaciyey oo wuxuu qofku qabanayo iyo wuxuu samaynayo iyo wuxuu ku dhawaaqayo intaba ka qoraysa ogna inay jiraan. wa inna calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun, waxa korkiina ah qaarin ilaalinaya oo qoraya waxaad samaynaysaan. in kullu nafsin lamaa calayha xaafid, waa ka suuratu daariq ilaahay ku leh ma jirta nafi ilaa cid xifdida oo ka warhaysa ayaa la raaciyey oo la daba dhigay. maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid. saas oo kale qofku walaalayaal waa inuu ogaado oo uu dareemo inaanu adduunkan ku waarayn, xisaabina u dambayso. waxaanu maanta samaynaya hadduu ka samri waayo macaasidanna ma garanaysaayee laga xisaabin doono. markuu naftiisa mar walba dareensiiyo geerida iyo mowdka iyo dadkii ka fadli badnaaba inay dhinteen, qofka bini aadankaa aada iyo aad bay u adkaanaysaa inuu ku dhiirto macaasida. waayo adduunkan waa ka ilaahay qur-aan kale kullu man calayha faan wayabqaa wajhu rabbika duljalaali waalikraam. cid haddii la dayn lahaana waxaa la dayn lahaa ambiyaa ullah, ambiyadii ilaahay nabiyullaahi maxamed, ciisa, muusa, ululcasmigii baa la dayn lahaa iyo saalixiintii iyo awliyadii ilaahay. markaa qofku markuu geerida lafteeda uu naftiisa ku waaniyo waa waxyaabaha ka saacidaya qofku inuu xumaanta iska ilaaliyo iyo munkaraadka. saas oo kale qofku inuu ogaado shay kastuu samaynayo in laga qorayo
maalinta qiyaamana lasoo hordhigi doono. wawdica alkitaabu fatara almujrimiina mushfiqiina mima fiih wayaquuluuna yaa laytanaa maa lihada alkitaabi laa yuqaadiru sagiirata walaa kabiirata ilaa axsaaha wawajhaduu maa camiluu xaadira walaa yadlimu rabuka axada buu ilaahay subxaanahu watacaala suuratu lkahfi ku leeyay. maalinta qiyaame markay arkaan kuwii mujrimiinta ahaa kutubtoodii iyo wixii ay sameeyeen oo laga qoray bay odhanayaan maa lihada alkitaabi laa yuqaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaaha. waxay kitaabkan wax walba laga helaya, wax yar iyo wax weynba. waman yacmal mithqaala daratin khayran yara waman yacmal mithqaala daratin sharan yara. shar yar oo daro leeg, wax aada u yar haddaad samaysay waa qoran, khayrna haddaad samaysay waa qoran. saas oo kale walaalayaal waxaa loo baahan yahay inuu qofku naftiisa xasuusiyo inay dambayso maalin qofkii macaasida ka tagi waayey haddaanu ilaahay u naxariisan una dembi dhaafin la ceebeen doono, khalaa'iqdana uu ku dhex fadeexadoobi doono. min nabiyullaahi aadam ilaa qofka bini aadan ugu dambeeyana meel layskugu keeni doono ayuu ku dhex ceeboobi doonaa. waa ka nabigeenu calayhi salaatu wasalaam inoo tilmaamayo dadka qaar dunuubtay samayn jireen awgeed in lagu fadeexadayn doono. oo nabiyullaahi maxamed uu lahaa laa tasaalu lmas'alatu biaxadikum xataa yalqa allaha walaysa wajhuhu muscatu laxmin. ma jirto qof idinkayniga mida oo baryadiisu badatay oo dadka wax weydiisanaya mar walba oo baryo badan ilaa maalinta qiyaame ilaahay wuxuu la kulmi doonaa isagoo wejigiisa aanu hilib lahayn oo la faqaya xana. waayo waa la fadeexadaynaya, waa munkaraadkii iyo xumaanihii uu sameynayay, isagoo ilaahay subxaanahu watacaala laga yaabo inaanu arrintan ku kalifin ayay kaga dhegtay inuu dadka magaranaysa ay wax weydiisto oo uu baryo. saas oo kale waa kilahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiis kale ina alqaadira yunsabu lahu liwaaun yowma alqiyaama. qofkii ballanta ka bixi jiray maalinta qiyaame waxaa laga dul taagaya calan baa laga dul taagaya, fa yuqaalu haadihi qadratu fulaan ibnu fulaan. kaasaa la odhanayaa waa ballanka bixii hebel hebel. dunuubtaa la isku fadeexadaynayo maalinta qiyaamaynu xaadiistan ku arkayno dunuubka waaweyn bay dadku sameeyaan oo la ogyahay, hadday tahay sino, hadday tahay shurbulkham, hadday tahay aklu riba, hadday tahay dad muslimiina dhiigoodoo la bannaysto. maalintaa walaalayaal in qofku naftiisa ku aniyaa loo baahan yahay la isfadeexadaynayo. saas oo kale waxaa loo baahan yahay qofku inuu dareemo markuu dunuubta sameynayo waa qof naftiisa waxyeello u geysanaya oo qalbigiisa dhaawacaya. waayo nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa ina alcabda idaa adnaba danban kaanat nuktatun fii qalbih fa idaa taaba saqula qalbuh. qofku markuu dembi sameeyo qalbigiisa waxaa lagu dhuftaa nugta, hal dhibic oo madow. hadduu ka toobad keeno saqula qalbu, waa laga tirtiraa dhibicdii madoobay. fa idaa saadad xataa yasuuda qalbu. haddii uu xumaantii sii siyaadiyana madowgii waa kusii siyaadaya qalbigiisa. qaala fadalika qowluhu kalaa baraana calaa quluubihim maa kaanuu yaksibuun. waana hadalka ilaahay subxaanahu watacaala uu yidhi iska daaye waxa daboolay quluubtoodii raanka ilaahay uu meesha ku tilmaamayo. nebi maxamed wuxuu ku fasiray nugtada qalbigiisa qofka lagu dhufanayo markuu dunuubta sameeyo. walaalayaal qalbiguna ilaa siduu ilaahay tilmaamay markuu xumaantaa qofku wado heer buu gaadhayaa marka dambe uu qallalayo oon xadiis lagu wacdiyo, qur-aan loo sheego, waanu aanay karinba. ilaahay qur-aanka suuratulbaqara ku leeyay huma qasad quluubuhum fahiya kalxijaarati aw ashaddu qaswa waina min alxijaarati lamaa yatafajaru minhu alanhaar waina minha lamaa yashaqaqu fayukhriju minhu lmaa waina minha lamaa yahbidu min khashyati illaah wama allahu biqaafilin camaa tacmaluun. quluub baa imanaysa ka adag dhagxaanta. markaa walaalayaal qofku waxaa loo baahan yahay markuu dunuub ku dhacayo ama dunuub naftiisu ay ku riixayso inuu waxaan dareemo. howlahan aynu tirinay waxay ka saacidayaan qofku inuu xumaantii iskaga tago.
saas oo kale qofku waxa loo baahan yahay inuu ilaahay subxaanahu watacaala nicamku inagu nimceeyo waxaa ka mida ma jiro shay ilaahay naga xaaraantimeeyey ilaa bedelkiisii oo xalaalu ilaahayna siiye markay naftaadu xumaan kuu tilmaanto ama kuu qurxiso haddaad u cararto bedelkii ilaahay subxaanahu watacaala kuugu bedelay xalaashaha waad ka kaaftoomaysaa wixii xaaraantaha tusaale ahaan ilaahay subxaanahu watacaala dadka waxaa ka xaaraantimeeyey sinada ilaahay guur buu baneeyey waxyaabaha la cuno wax ka midu ilaahay dadka ka xaaraantimeeyey haday noqoto baktigii khamrigii waxyaabo kaloo ka badan buu ilaahay subxaanahu watacaala dadkii u xalaalay qofku waa inuu raadsado si uu xumaanta uga badbaado iyo macaasida waxyaabaha kale ilaahay subxaanahu watacaala bedelka uga dhigay si ay addoommadu uga kaaftoomaan xaaraanta walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala xaqa iyo diinta haynagu sugo aakhiri adduunna ilaahay naga dhigo kuwii liibaana kelimaadkaa kooban wixii aan ka saxayna waa fa min allah haddaan wax qaldayna waa fa min nafsi wa min ashaytaan subxaanaka allahuma bixamdig ashhadu an laa